Harada Nios. Takhayal adoo habeenada ka mid ah seexday jawi degan bilaa buuq laakiin subaxii aad soo kacday qariyadii ama tuuladii oo dhammaan dadkii ay wada dhinteen. Tani waxay dhacday 1968kii Afriqiya. Maalmaha ka mid iyadoo xaaladdu degan tahay jawigu fiican yahay ayaa waxa si lama filaan ah u qarxay infijaar ka dhacay harada hoosteeda ama biyaha hoostooda. Waxayna ka dhalatay carbon dioxide ku kaydsanaa oo cadaadiska biyaha iyo waxyaalo kale ay isbiirsadeen oo meeshaas ku kaydsamay ku batay ayaa habeenada ka mid ah sameeyay infijaar qarax. Qaraxaas waxay dhahdaan waxa ugu wacan isku dhaca dhulka ama dilaac dhulka ku yimiday. Hase ahaatee waxa dhacday qaraxaasi in carbon dioxide ku kaydsanaa biyaha hoostooda ay hawada u soo baxaan. Sida caadiga ahna carbon dioxide ku culus yahay hawada kale. Wuxuu ku faafay tuuladii isagoo bilaa qiiqa bilaa saameyna. Dabadeedna hawadii waxay noqotay dhammaan carbon dioxide. Oxygen-tii meesha way ka baxday. Taasi waxay keentay in dadkii si lama filaan ah ay u baaba'aan iyagoo aan ogeyn. Xataa xoolihii ku noolaa qariyadaas waxa saameeyay oxygen la'aanta. Iyaguna waxay u dhinteen carbon dioxide kaas ku faafay qariyadaas. Ilaa kumanaan qof ayaa ku dhintay sidoo kale xoolo badan ayaa ku baaba'ay. Dhacdadan waxa loo bixiyay limnic eruption. Markii dambe waxa la xaliyay waxa la sameeyay pipes ama tuubooyin haradii gunteedii. Dabadeedna carbon dioxide ayaa ka soo qaaday oo banaanka u soo tuuraysa